maanta magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay gaari dagaal oo ka soo goostay ciidamada Soomaaliland ee ku sugan aagga deegaanka Sool joogto. Gaarigan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle. Gaarigan waxaa watay 2 nin oo dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland ku sugan aagga deegaanka Sool joogto. Dadweynaha soo dhaweyn kadib gaarigan waxaa loo galbiyay waliba ciidankii watay aqalka madaxtooyada maamulka Khaatamo State ee magaalada Buuhoodle. halkaas ay kulamo kula qaateen madaxda sare ka tirsan maamulka Khaatamo State, waxaana talaabadan maanta si weyn u soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodle. manaha mid ka cusub in ciidamo ka tirsan Soomaaliland ay ka soo goostaan dhinaca maamulka Soomaaliland iyagoo lagu soo dhaweeyo deegaanada Khaatamo, balse dhacdadan ayaa ah mid ugub ah iyadoo dadka deegaankuna ay maanta aad u soo dhaweeyeen markii ugu horreysay ay tahay in ciidamo ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland lagu soo dhaweeyo deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ee Khaatamo. bulshada deegaanka ayaana arrimahan maanta siyaabo kala duwan u qaada dhigaya. ma jirto wax war oo ka soo baxay maamulka Khaatamo State ee Soomaaliya ilaa imika, balse waxaa la filayay madaxda sare maamulka Khaatamo State ee Soomaaliya ay ka hadlaan gaarigan imika soo gaaray deegaankan. Ismaan Yusuf Cali Dhagjar.